muuqaalkani waxaan soo gudbinaynaa maalintii ugu dambeysay ee 2024 waana 31 bisha 12aad 2024. muuqaalkani wuxuu ciwaankiisu ku saabsan yahay sidee loo noqdaa ganacsade suuqani forex ka shaqaysta misana isku kalsoon. waxyaalaha inta badan su'aalaha baada birlaba fix la soo weydiina waxaa kamid ah waxaa inaga maqan waxa la yiraahdo kalsoonida. haddaysan kalsooni jirna meel walba waxba kama qabsan doontid. marka sidee kalsoonideeda suuqa forex aan ku dhisaa ayuu ku saabsan yahay ciwaankani maanta. ma ogtahay in ay kalsoonidu tahay furaha guusha dhan walbaba. haddaysan kalsooni jirin waxa ma jiraan. ganacsigan suuqa forex waa safar, waxaana si joogto ah kugu soo baxaya caqabado. sidoo kale waxaa si joogto ah u helaysaa fursado. haddaba sidee ku noqon kartaa qof si kalsooni leh ugu ganacsada? xitaa marmarka qaar suuqu waxa uu noqonayaa mid aan la saadaalin karin. saa darteed sideen ugu gudbi doonaa? waana sababta maanta aan kaga hadli doonno sidee loo noqdaa qof isku kalsoon suuqani forexna ka shaqaysta. ugu horreyn, forex waa suuq aad iyo aad u baaxad weyn dunida oo idinla laga ganacsada, oona u baahan kalsooni dhab ah. waayo kalsoonidu waxay ku salaysan tahay inaad go'aan qaadatid oo aad gaartid go'aamo sax ah. laakiin kalsoonidaasi ma timaado oo si sahlan uma imaado. waxay ku timaadaa kalsoonidaasi aqoon, waayo aragnimo iyo inaad leedahay qorshe cad. haddaba muuqaalkani wuxuu inta badan ka hadlayaa kalsooni. kalsoonina waxay timaadaa inaad aqoon leedahay, inaad khibrad leedahay, inaad nidaam ku degsan oo aad fahmi kartid oona kuu shaqaynaya aad leedahay. waxyaalaha kalsoonidaada hoos dhiga maxaa ka mid ah? haddaba kalsoonidaada waxyaalaha hoos dhiga waxaa ka mid ah inaad dareentid haddii khasaare ay kugu timaado, kalsoonidaada waxay noqonaysaa mid nusqaan haddaanan lahayn khibrad ama aqoon aad u sarraysa. sidoo kale inaad suuqa aadan faham guud ka haysan, kalsoonidaada ganacsi aad ayay hoos u dhigaysaa. sidoo kale inaad leedahay cabsi joogto ah, sidoo kale kalsoonidaada ganacsi ayay hoos u dhigaysaa. laakiin waa muhiim inaad ogaatid in qaladaadkaaga ay yihiin qayb aad iyo aad u muhiima oo wax laga baran karo. waxyaalaha kalsoonida sare lagu qaado waxaa ka mid ah, haatan haddaan isla soo galno, inaad waxbarasho joogto ah aad leedahay. aqoon la'aani waxay ku keentaa shaki joogto ah. si markaa loogu gudbo, aqriya buugaag fara badan oo ku saabsan suuqa forex, daawac cashiro badan oo suuqani ku salaysan, tababaro qaado. si aad kalsoonidaada u adkaysidne samayso akooma deyma ah, si aad biri haddii akoon real aad qaadatid aad si wanaagsan aad ula dhaqantid. qodob koowaad wuxuu ahaa inaad waxbarasho joogto aad samaysid, oo waxbarashadu lagama weynaan. xitaa adoo suuqaan taqaanid waa muhiim inaad waxbaratid. qodobka xiga waxa weeyaan inaad nidaam cad aad yeelatid ama istiraatiijiya aad dhihi kartid istiraatiijiyadan waxbaa laga samayn karaa, oo istiraatiijiyadan group hebel ama qof hebel ay hore ugu soo shaqaysay, oo istiraatiijiyada markaad tijaabisidna ay tahay istiraatiijiya aad iyo aad u wanaagsan. saa darteed kalsoonidu waxay ku timaadaa markaad leedahay istiraatiijiya kuu shaqaysa oo aadna fahamsan tahay. mar walbana istiraatiijiyada hadday shaki kaaga jirto, wax aad kalsooni keeni karta ma jirto. waayo waxaad ku shaqayn lahayd ama waxaad ku duulaami lahayd aaba shaki kaaga jira, maxaad qabanaysaa marka? amay waxyaalaha kalsoonida keeni kara waxaa ka mid ah in waxbarasho joogto aad samaysid, in istiraatiijiya cad oo mar walba istiraatiijiya kuu shaqaysa aad heli kartid. qodobka saddexaad maxay tahay? in khatarahaaga aad maaraysid. suuqana waxaa ku geedaaman khatar aad iyo aad u weyn. ha ku ganacsanin lacag aadan lumin karin. taa macnaheed waxa weeyaan ha qaadan trade aadan ogeyn. hadduu khasaare kaaga dhaco, inta akoonkaaga oo xamili kara haddaadan awoodi karin, ha qaadan trade-ka. haddaadan dhihi karin akoonkayga waa 10k ama akoonkayga waa $1 at least ma lacag 500 kugu jirto, haddaadan xamili karin trade-ka aad qaadanaysa SL-ka hadduu kaaga dhaco, ha qaadan trade-ka iskaga tag oo khatartaada maaray. mar walba inaad khasaaraha xakamaysid aday muhiim ku tahay. isticmaal mar walba runtii waxa la yiraahdo stop loss. dad fara badan waxaa jira stop loss markuu trade-ka SL markuu kusoo dhawaado, oo trade-ka dhanka khasaarada markuu soo dhawaado in SL ka saaraan ama ay durkiyaan. mar walba go'aan muhiim ah gaar intaadan trade-ka qaadan ka hor. waa muhiim. qodobka afraad waa qodob mar walba asxaabta baada birlaba fix ay la wadaagaan. waxa weeyaan diiwaangeli, qor dhammaan ganacsiyadaada si aad u barato wixii sax ahaa iyo wixii qaldanaa. guulahaaga iyo khasaarahaaga waa macalimka ugu weyn ee ku hagaya.
ilaa suuqa forex ma lahan maamul ama dad maanta kugu cadaadinaya ku dhahaya saan samee mar walbo diiwaangelintaada ama inaad jadwal leedahay oo wax qoraysid waa macalinkaaga aadan ogeyn oo mar walba ku hagaya. ugu dambeyn kalsoonida suuqa forex ma timaado hal maalin gudaheeda, laakiin haddii aad diyaar u tahay inaad naftaada maalgashato oo aad la qabsato waxbarashadaada iyo waayo aragnimadaada, waxaad noqon doontaa ganacsade kalsooni leh. maskaxda ku hay guusha maahan inaad weligaa sax noqotid, laakiin waa inaad si joogto ah wax u baratid oo nafsadaada aad u horumarisid. saa darteed mar walba isku day go'aan markaad qaadanaysid in go'aankaagu ahaado mid aad horay ugu fikirtay. go'aamadaada ha ku saleen dadyow horay wax u qabsaday. tusaale waxaan leeyahay, waxaa jira inaad baraha bulshada inta badan ku aragtaan dadyow fara badan oo dhahaya tireedkaanan qaadanay, tireedka TV boo nagu dhacay, muuqaalaad arkaysaa. dabcan waxbaa jira marka, waxbaa isdabayaacaya. adi markay ku saameyntaa mar walba adi go'aankaaga xooga saar. qof ilaahay haddoo maanta malaayiin dollar sameeya adi waxba kaama gelin, taadaa muhiimku ah. markaad bilow tahay arrintaas oo kaleeto way ku saameynaysaa oo maanta idil waxaad ka fikiraysaa, waxaad leedahay niyow aniga tireedkan qaadan lahaa, xaalkayga sidoo ahaan lahaa, tireedkan dasaan sameyn lahaa. marka laablakaca suuqa forex marar badan hore waa u jiray, haatanna waa u jiraa, waa una jiri doonaa. oo waxaad arkaysaa 2025 dadyow inta badan aad la yaabi doontid, ama dadyow ajnabi ha ahaadan ama dadyow kulamida Soomaali ha ahaadaan. marka aad mar walba taa waxa u gudbi kartaa wax weeyaan inaad qof isku kalsoon tahay, nidaamkaaga aad ku dhagan tahay, nidaamkaaga wuxuu ku sii aad qaadan kartid, haddii aad ka weysidna aad ka hari kartid. hadda waa waqtigaaga 2025 soo qaado ganacsigaaga, naftaadana ku kalsoonow suuqa forex oo isku diyaar inaad ka guul gaartid suuqa forex.